dhammaan mas'uuliyiinta iyo marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan aad iyo aad baan u salaamayaa. waxa kale oo runtii aad iyo aad u salaamayaa Komishanka Xuquuqul Insaanka Qaranka oo runtii aan isleeyahay waa hay'adaha qarankeena ee jira ee shaqeynaya aad iyo aadna aan u bogaadinayo shaqada ay hayaan aadna aan ugu faraxsanahay inaanu ka soo qayb galayna runtii ay muujinaysaa inay kalsoonideeda haystaan. shirar badan oo dawladdu qabata ma tagno laakiin tiise kan waxaan u nimi wuxuu uga duwan yahay inaan qirsanahay shaqada ay hayaan ee qaranka u hayaan inay shaqo aad iyo aad u wanaagsan tahay. waxaan xalay waxaan akhriyay warbixinta xeer ilaaliyuhu ka hadlayay marka iyadaan reference garayn doona haddii ilaahay raado insha Allah. asalan ba shuruucda xuquuqo fara badan baa hartu jira. qofka bini'aadamka ahi ilaahay baa karaameeyay xuquuqda asalka ah ee uu qof waliba leeyahayna quraanka kariimka ah bay ku jirtaa. xuquuqaha faraha badan ee jira si loo ilaaliyo shuruucda loo samaystaa. xuquuqaha faraha badan ee jira si loo ilaaliyo oo laba ku soo urura marka la soo ururiyo xuquuq dadka dhexdooda ka kala dhacda iyo xuquuq muwaadinka iyo xukuumaddiisa ka kala dhacda. muwaadinkuna xuquuq buu leeyahay, xukuumadduna xuquuq bay leedahay iyo dawladnimaduna xuquuq bay leedahay. laakiin mas'uuliyadda koowaad waxay saaran tahay dawladda iyo dawladnimada inay xuquuqda muwaadinku leeyahay inay ilaalido, xuquuqda dadkana ay kala ilaaliso oo dadka ay u kala garnoqdo si cadaalad oo siman ay ugu kala garnoqdo ugu kala cadaalad ay ugu samayso. waxa markaa run ahaantii jira iyadana institutionskana loo abuurtaa si institutionskaasina ilaan haddii hal nin oo kaliya too xoog leh uu meel joogo wuxuu doonu samaynayaa. sababtaas aynu samaysanay inay maxkamadaha madax banaani jiraan, in baarlamaan jiro, in maxaan ku dhahdaa xeer ilaalin jirto. laakiin de su'aashu waxa weeyaan ma magac ahaan u bay u jiraan mise sidii la rabay iyo sidii shuruucdu sheegaysay ee xuquuqdu sheegaysay ayay u shaqeynayaan. sidii yacni qawaaniintan aynu akhriyaynu sheegaynaynu ku celcelinayno dhab ahaan ma ugu dhaqmaynaa mise waynu iska leeleenaho qofku marka uu isagu dantiisa leeyahay ayay u shaqeeyaan oo u dhaqmaan. jawaabta xukuumaddu marka arrin laga hadlo amaba cidi dhaliisho amaba cidi wax ka sheegto habkay u jawaabtaa had iyo jeer hab cilmiyahoo doodahoo ay arrintaasi doonaysa inay qanciso maaha. hadalkaa xeer ilaaliyahana makhraati ah ee imika uu halkan ka jeediyey. waxaa xarunta xuquuqul insaanka ee Hargeysa ka jirta oo runtii sharfan waxay soo saartay warbixinteedu de aayad quraana maahe waa laga hor iman karaa waa laga doodi karaa. laakiin in la yidhaahdo holan baa ka dambaysay oo meel baa wax lagaga soo shubaa meel baa wax lagaga soo sheegaa waayo warbixintu figures bay sheegaysaa. warbixintu waxay sheegaysaa in 8 case intii sanadkan ay dhaceen oo dad loo xidhay xorriyadooda iyo hadalkooda in loo xidhay. dad badan baa jiroo la xidhay been maaha. TV-yaa la xidhay, amar wasiir lagu xidhay, sharciyadda sheegaysa de anigu ma garanayo oo warqad wasiir soo qoray lagu xidhay. dad muwaadiniin ahoo la xidhay baa jira oo aan taa imika xeer ilaaliyuhu sheegaya loo marin oo aan la marinin maxaan ku dhahdaayey aan waaran loo jarin. waxyaabaha mushkiladaha ugu waaweyn ee na haystay xuquuqdeennana dhibaatada ku ah waxaa ka mid ah waxaynu ku dhaqannaa xeerka ciqaabta guud ee imika uu halkan laga refer gareynayay